dhexdhexaadin xoog leh ayaa ka dhex socota Cali Guudlaawe iyo siyaasiyiin dhowaan u diiday safarkiisa uu ku tagi lahaa degmada Maxaas. Cali Guudlaawe waxa uu ku bixinayaa qiimo aan macquul ahayn si uu mar u tago degmada Maxaas. waxyaabaha sababay in qiimahaasi sare u kaca ayaan muuqaalkan kugu la wadaagaya halkee ku dambeeyay hubkii Itoobiya ay ka soo gudbisay xuduudka. qorshaha hubkaasi lagu geynayo magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan muuqaalkan idinku la wadaagayaa. Soo dhawaada, shartay like-ta naga iloobinaha, waad mahadsantihiin. hogaamiyaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa wali waxa uu ku sugan yahay degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo uu labadii habeen ee la soo dhaafay uu ku hoyanayo. waxa uu wili qodoreynaya Cali Guudlaawe inuu safarkiisa sii wato si uu u gaaro degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo loo diyaariyay in lagu soo dhaweeyo si uu halkaasi uu xariga uga jaro xarunta degmada, saldhigga booliska iyo garoonka badeed oo halkaasi laga dhisay. siyaasiyiin ka soo horjeeda siyaasadiisa ayna horkacayaan ganacsada Ibraahim Cabdidhaay iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Mudane Sufurow ayaa u diiday in uu safarka sii wato isla markaana uu tago degmada Maxaas. ila qarsoon oo xogihii ugu dambeeyay ka helayna ayaa waxay tilmaamayaan in wada hadallo ay socdaan. Cali Guudlaawana uu gaaray inuu ku bixinayo qiimo kasta oo ay sheegtaan siyaasiyiintaasi si uu mar u tago degmada Maxaas. siyaasiyiinta ayaa wali la sheegayaa in ay geed qabsadeen isla markaana ay wali taagan yihiin maya. dhexdhexaadiyaal ka dhex shaqeynaya oo u kala dab qaadaya ayaa la warinayaa inaysan wali ka quusanin in ilaa iyo caawa ay ku qanciyaan siyaasiyiintaasi in ay ka hor wareegaan safarka Cali Guudlaawe uu ku tagi lahaa degmada Maxaas. sir kale iyo xog kale oo qarsoon oo aynu ka helayno hubka Itoobiya ay ka soo gudbisay xuduudka Soomaaliya isla markaana ay geysay oo haatan uu ku sugan yahay degmada Maxaas ayaan helaynaa in la doonayo in Cali Guudlaawe ciidamo la socdo la doonayo in ay ka galbiyaan ama ay ka qaadaan hubkaasi degmada Maxaas si ay u geeyaan gobolka Shabeellaha Dhexe oo hadafku uu ahaa hubku halkii uu ku socdo. ilaha sirdoon ayaa intaasi ku daraya in dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya ay hubkan isla og yihiin ayna si wada jir ah uga shaqeynayaan sidii loo gaarsiin lahaa hubkan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Jowhar. qaybta Galmudug ee loo waday Dhuusamareeb ayaa gaari ka mid ah waxa bililiqaystay shacabka Caabudwaaq, halka kii kalena uu gaaray halkii loo waday. balse hubkii loo waday Hirshabeelle iyo magaalada Jowhar ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay gacanta ciidamada Itoobiyaanka ah. waxayna doonayaan ama laga shaqeynayaa sidii Cali Guudlaawe loo geyn lahaa degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, taa oo la doonayo in markaasi looga soo dusiyo in gawaaridaasi ay soo kaxeeyaan ciidamo badan oo haatanba la socda Cali Guudlaawe. dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya ayaa hubkan si wada jir ah u soo galiyay wayna isla og yihiin, waxaana taas daliil u ah kadib markii saxaafaddu hadalhayn badan ay ka dhalatay soo gelitaanka ciidamadan faraha badan ee Itoobiyaanka ah ee ka soo gudbay xadka ay dawladda Soomaaliya soo saartay fariin aan official ahayn ama fariin aan wada sax la soo marsiin oo wariye ay xogta u soo dusiyeen uu soo qoray in dawladda Soomaaliya ay og tahay ciidamada Itoobiya ee xadka ka soo gudbay ayna ku soo galeen codsi rasmi ah oo uga yimid dawladda Itoobiya si ciidamadaasi ay u raraan ciidamo AMISOM ah oo ku sugan degmada Maxaas oo la doonayo in ay halkaasi ka guuraan. balse su'aalaha ka dhashay ee ilaa iyo hadda jawaabta loo laayahay ayaa ah sidee ciidamo 4000 ah oo degan degmada Maxaas ay u rarayaan ciidamo ka badan oo 6000 ah oo iyaguna ugu imaanaya degmada Maxaas. ciidamadan ayaa waday gaadiid shareecan oo isjiid ah oo aan ahayn gaadiidkii looga bartay ciidamada Itoobiya inay isticmaalaan, waana gaadiidka la rumaysan yahay in uu saaran yahay hubka la rabo in loo gudbiyo gobolka Shabeellaha Dhexe.